madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo mar kale loo doortay inuu hogaamiyo xilka madaxtinimo ee dalka Kenya. Saayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa caleemasaarka kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya caleemasaarka uu maanta kaga qayb galay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo si hadlay waxa uu intaa ku daray in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo ay maalinta baritaa u anbabixi doonaan magaalada Abidjan ee caasimadda dalkaasi Ivory Coast. bismillaahir rahmaanir rahiim sida la socotaan madaxweynuhu maanta waxa uu ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. 47 dowladood ayaa ka soo qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha anaguna madaxweynaha qayb ayuu ka ahaa. haddii alla idmana maalinta berita wuxuu u duuli doonaa dalka Ivory Coast ee caasimadda Abidjan halkaas oo lagu qaban doono shirka Afrika iyo Europe oo laga hadlo doono iskaashiga dhaqaale iyo siyaasadeed. madaxweynuhu si qurux badan ayaa loo soo dhaweeyay maantana waxa uu ka qayb galay caleemasaarkaasi kadib madaxweynaha waxa uu qadar loogu sameeyay aqalka madaxtooyada dalka Kenya ee State House loo yaqaano. Omar Aqil SNTV Nairobi.